subax wanaagsan guys sidaa u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan fadlan hadii daawashada ku waraysa channel subscribe inoo saar intaas kadib waxaan rabaa inaan isla fiirino shaxdii shalay oo shaxdeena koowaad oo priority koowaad inoo ahayd taasoo aan ku iri lixda kooxood waa furaheena guusha shalay markaan soo dhigayn waxaa ku dhahay 100% shaxdan wun waay sababta waxaan ogaaday kooxaha aad ku tira badan ama odiska aad ku tira badan inay inta badan loo skeenayaan marka sida ka warqabtaan shalay 6 kooxood ayaan soo dhigay lixda kooxoodna intii ka faa'iideysatay way ka faa'iideysatay oo way ogyihiin lixdan kooxoodna waxay kala ahaayeen waxay Southampton iyo Manchester City shalay waxaan dhanay war gelimeyn aan dhahnay toos way badinaysaa taasna qof kasta oo iska ogeed wayna badisay waxa ku soo xigay Brighton iyo Tottenham maadaama Brighton hore kugu sheegay inay tahay waxa ku leedahay koox aad u dhib badan macnaha sidoo kale dhalinyaro aad u dhib badan ay u ciyaaraan marka handicap u isticmaal handicapkaas oo ahaa in Tottenham 2 gool looga badi karo shalay waxa ku leeyahay inay Tottenham badinaysan jeclahay laakiin anigoo looskiyo aan ku ordinayo waxaan dhahnay Tottenham handicap 2 2 gool ma looga badinayo Chelsea hadaa xasuustaan shalay waxaan dhahay way badinaysaa rag badan dhahay waxa u saaray double chance laakiin Chelsea waa ku kalsoonaa because Chelsea qaab ciyaareedkeeda qof walba la eega marka Chelsea waa ku kalsoonaa inay badi karto Wolverhampton ay ka badi karto waa u jeedaan 3 gool ayay u dhiibtay waxa ku sii xigay kooxdan Leicester City iyo Bournemouth tani ma ku dhihin macnaha Leicester badinaysa Bournemouth badinaysa ma dhihin 2 gool ka imaanaysa ku total over isticmaala shalay daxsusta ku 3 iyo 4 ay ka timaada laga yaabo sababtoo nimanka daafacyadu way furan yihiin oo because wax daafac mala kubadana inta badan hadaa artan kubadan gool iska dhalin waa mar ay kooxaha daafacyadu ay adag yihiin waxa ku sii xigay Atletico Madrid iyo Girona aan saaray double chance Atletico Madrid sida u jeedaan waxaan dhahay badis aan Brejo waan u jeedaan 2 gool iyo hal ay ku badisay waxa ugu dambeeya Keteva iyo Real Madrid waxaan saaray double chance Keteva ku sheegay Keteva way dhib badan tahay marka inkastoo kaalmada oo sagaalaad ma ku jirta mashiik laakiin way dhib badan tahay hal gool Real Madrid ee ku hormartay iyadoo 3 daqiiqo socota laga dhaliyay ay Real Madrid dhalisay waana loogu dhameeyay sida u jeedaan waana loogu dhameeyay marka lixda kooxood waa furaheena guusha oo diskeedan uu fiicnaay oo 3 door ay ka badan ayuu ahaa markasta ogaada lixda kooxood arkaysaan oo fureen guusha markasta waxaan soo dhigi doonaa 2 shaxan soo dhigeena shaxda koowaad oo noqon doonto priority koowaad oo 6 kooxood ah iyo tan labaad oo ah maxaan ku yiraahdaa odiskeeda badan yahay oo iidan midaas nasiib ay noqon doonto marka aad u mahadsantiin guuleysta saaxiibayaal